Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh kusoo dhawaada Higgs Technology oo aad aga barateen inay idiin soo gudbiso cashiro ku saabsan graphical design iyo video editing. Sidoo kalena waxaa idiin soo gudbisaa Higgs Technology cashiro ku saabsan tiknoolajiyadda. Sidoo kale waxay kaloo idiin soo gudbisaa muuqaallo ku saabsan dhiirigelinta. Maanta hadduu alle idmo waxa uu ku saabsan yahay muuqaalkan sida loo isticmaalo Adobe Illustrator. Gaar ahaan waxaan aga jawaabi doonaa su'aal oo ina soo weydiiyay mid ka mid ah daawadayaasha ama asxaabta aan ku leenahay page-keena YouTube-ka ee Higgs Tech. Su'aashan ayaa waxa ay tahay sida loo sameeyo shape noocan oo kala ah. Loogadan aad ujeedaan waa mid ka mid ah jaamacadaha. Dhab ahaantii meesha ay ku taal xaqiiqatan ma garanayo, laakiin muhiimadda waxay tahay wuxuu soo weydiiyay sida loo sameyn karo shape-ka noocan ah ee aad ujeedaan. Meeshan waxaa aga jeedaan xidig gudahaas ku jirta, koofida qalin jebinta, warqadda qalin jebinta, buug iyo qalin iyo bridge. Intaas dhaxda ku jirto dhan wax muhiim ah maahan, waa sawir la soo qaaday oo meesha la soo geliyay weeyaan. Marka muhiimadeena waxaa weeyaan shape-kan kore iyo qaybtan hoose ee ayadana shape-ka kala ah. Si aan marka u sameyno muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. Kusoo dhawaada Higgs Technology. Okay, si aad u sameysid shape noocan oo kala ah ama si looga design-keedu sidaan oo kale yahay, soo geli sawirka aad aga daysanaysid inta. Markaad sawirka soo gelisid waa ku dhufanaysaa, waxaad tagaysaa opacity-ga meeshan ay ku qoran tahay. Kadib opacity-ga ayaa yareynaya. Opacity waxaa waaye awoodda uu sawirka meeshan ku joogo. Sidan marka uu yaraado waxaa ku sameynaysaa click ayaa ku siinaysaa. Waxaa leeyahay objective, kadibna waxaa leeyahay lock, kadibna select lock. Sidaas markaa dhaho waxa dhacaysa in uu xirmay. Hadaa ku dhufan maayo ma ku dhufsamaayo sawirka. Ujeedkeygana wuxuu yahay in aan ku kor sameeyo shape-keyga aan wato. Waan gartay. Kadib waxaa sameynaya waxaa leeyahay Control R oo macnaheedu yahay ruler-kan ii soo bixi. Haddii aad halkan ka soo bixin Control R aad rabin, view tag kadibna soo dooro meesha ay ku qoran tahay ruler. Ruler-ka waxay leedahay qayb sare oo loogu talagalay jiifka iyo qayb gees ah oo loogu talagalay joog ahaan. Qaybta joogga ayaa isticmaalaynaa. Marka koowaad waxaad soo qaadaysaa hal mid ka mid ah center-ka sawirka ayaa keenaysaa. Markaad sidaas sawirka center-ka u keentid, mid kale ayaa soo qaadaysaa, waxaa keenaysaa geeskan. Halkan ayaa keenayaa. Loogadan sa ujeedaan waxaa loogooyinka looga baahan yahay inay arranged noqdaan mar walba isku toosan yihiin. Halkan wareegan meesha ku dhamaado iyo geeskas meesha ka bilowdo inay isku mid ahaadaan la rabay, laakiin waxaa dhacday waa la kala sikiyay. I don't know why, laakiin marka sida saxda ah loogooyinka waxaa loo baahan yahay inay halkan iyo halkan isku toosnaadaan. Midaas markaa sameysid, mid saddexaad soo qaado ruler-ka, geeskan keenso. Okay, ani marka maxaa rabaa inaan sameeyo? Muhiimadeyda maahan inaan angle-kaas isku toosiyo, laakiin wax isku toosan ma sameynayo, laakiin tan ayaan raaci doonaa. Okay, intaas markaa sameysid waxaa tagaysaa Paint Tool ayaa soo qaadanaysaa. Waxaa ka bilaabaysaa halkaas ugu sareysa, click ayaa ku siinaysaa. Geeskan kale ayaa imaanaysaa, click ayaa ku siinaysaa, kadib geeskas ayaa u baxaysaa. Adigoo haysid muuska qaybtiisa midig iyo saas leedahay. Halkan iyo halkan markay saas iskula simaan ayaa halkan imaanaysaa oo ku dhufanaysaa. Markay falaarta noqoto sidii angle 60 oo kale isku bedesho ayaa click leedahay. Kadib halkan ayaa ayadana imaanaysaa, geeskan ayaa ku dhufanaysaa. Intaas markay tagto wareegan ayaan rabaa inaan sameeyo, halkan ayaa ku dhufanaya. Kadib sidaas ayaa u jiidayaa ilaa wareega uu ka sameysmaayo. Wareegaas uu soo dhamaystirmay. Waa gartay. Kadib waxaa imaanaya halkan ayaa imaanaya, click ayaa ku siinaya, kor ayaa wax yar u jiidaya sida. Okay, kadib meesha ka soo bilaabay ayaa tagaya, waa isku xiraya. Waan gartay. Sidaas markaa sameeyo waxaan tagayaa halkan direct selection tool-ka ayaa tagayaa, midkan ayaa ku dhufanaya. Marka saas ugu dhufto
waxaa bilaabaya inaan sidan usoo jiido ilaa uu kasoo sameysmo wareega. kadib waxaa moodaa inay inta kusoo tarax tagtay, intaa qabanayaa, sidaas ayaa u jiidaya. sidaas markaa intaad sameysid, toolkiga caadiga ah selection toolka ayaa tegayaa, ama v ayaa keyboard ka taabanaya, click ayaa ku siinaya. markaas click ku sameeyo, right click ayaan leeyahay, waxaa dooranayaa transfer, kadibna waxaa dooranayaa reflect. muxuu ii siyaadinayaa marka? hadda waa ujeedaan qayb kamid ah ayaa sameeyey 50%. qaybtan ayaa rabaa inaa koobiyo oo qaybtan u koobiyo. markaa saas sameynaysa, click ayaa ku sameynaysaa, waa sida ugu fudud. kadibna waxaa sameynaysaa reflect tool, kadibna waxaa dooranaysaa reflect, transform, reflect. okay, sidaa markuu yahay, waxaa dooranaysaa preview. inta waa inay 90 ku noqotaa, inta waa inay vertical ku noqotaa, intana waxaa leedahay copy. kadib waa qaadaysaa, geeskan ayaa ka dhigaysaa, waa isku dhejinaysaa. okay, kan click dheh, shift qabo, kan kale click dheh asna adoo shift qabatid. kadib waxaad tegaysaa halkan pathfinder, kadibna waxaa leedahay united. marka intaad sameysid, colorka ayaan rabaa inaan ka bedelo, halkan ayaa tegayaa, color noocan ayaa siinaya. okay, kadib waxaa sameynayaa ruleskan ayaa soo qaatay, ayaa highlight garaynaya, waa ka bixinaya meesha, delete ayaa ga bixi. sidaa ujeedaan shapekan iyo shapeka meedka hore isku mid ayay noqoneen. waxaa rabaa marka inaan sameeyo qaybtan kale oo hoose. waxaa tegayaa halkan, waxaa soo dooranayaa straight line, kadib halkan ayaa soo dhigay geeskaas ilaa geeskaas ayaa dhigayaa, anoo shift haya so straight line igu noqdo. kadib halkan ayaa tegaya, stroke colorka ku darayaa, stroke colorkana waa badinaya. okay, intaa markaa sameeyo, waxaa rabaa qaybtan inaad sameeyo. waxaa jira tool ku jira Adobe Illustrator-ka. waxaan tegayaa halkan qaybta midig, meelay ku qoran tahay brush. okay, ama brush ku dhufo, ama se kan ku dhufo symbol-ka, meeshaad ku dhufo, adiga ku taa. muhiimadeeda waxaa waaye inaad tago library-ga. library waxa la hayaa jiro halkan imaa. markaa brush ku dhufatid, ama se ku dhufatid qayb kamid ah kuwan, brushka ayaa ugu muhiimsan inaad ku dhufatid. click dheh, halkan imaa tools. kadib meeshaas waa library-ga, ma ku dhufatid waxaa imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay decoration. kadib waxaad dooranaysaa decor, banners and seals. marka sidaa ugu dhufatid, daaqadan ayaa kusoo baxaysa. daaqadan waxaa ku jira tools fara badan. midka ugu koreeya aa isticmaalayna waa kan. hadda ogaaw, midka kan lineka straight lineka aa sameynay wuu noo click ayuu noogu sameysan, waa noo select garaysan yahay. kaas ayaa dooranaya marka ugu koreeya. okay, halkan usoo noqo. marka waxaa ujeedaa inta way isbedeshay, linekaa sameynay, halkaana tool brushkan uu kusoo galay. marka kan ay soo iyo highlight garaysan, waxaa tegayaa stroke colorka, waa ziyaadinayaa. okay, saas markaa u ziyaadiyo, daaqadan waa iska kansalaya, kan ayadana sidoo kale waa iska xiraya. tana uu imaanaya. marka right click ayaa ku kor leedahay, kadibna waxaa leedahay transfer, kadibna reflect. reflect waxaa weeye dhinac ujeed maan dhinac kale ujeed. marka kan copy ma leedid ee waxaa leedahay okay. kadib waxaa ku sameynaysaa sidaa. markay taa waxaa leedahay halkan ayaa ku dhufanaysaa, waxaad tagaa extend objective ayaa ku dhufanaysaa, extend appearance ayaa leedahay. kadib intaa markaa sameysid, halkan ayaa sidoo kale tegi kartaa, hal color ayaa ka dhigi kartaa. waa soo noqonaysaa, waxaad tegaysaa meesha ay pathfinder-ka, kadibna unite ayaa dooranaysaa. kadib waa weyneynaysaa, hoosna waa u dejinaysaa. okay, leedaas marka kan select gareeyo, labadan geeskan aad dhigto. shapeka, aniga waxaan ka hadlayo waa shapeka, qaabka. muhiim maahan inaan aniga soo geliyo starka, inaan soo geliyo calaamadan sida loo yaqaano shahaadada warqadeeda iyo koofida qalin jebinta iyo book iyo waxaas adaa soo gashan kartid.
wax muhiim maahan, laakiin muhiimaddu waxay tahay sidaa ku sameyn lahaa shape-ka. Okay, shape-ka waxaa ujeednaa qaybtan waxay ka tahay blue. Aan soo weyneeyo, aan colorka usoo celiyo, ka dhigo 100%. Haddaa isku colorka dhigo, kan ayaa ku dhufanayaa, eyedrop ayaa taabanaya, colorkan ayaa dooranaya. Kadib geesaha buluug ayaa ka dhigaya, geesaha. Okay, sidoo kale hoos u deji. Waxaa ujeedaan qaybtan yar, waxaa moodaan inay xoogaa dheer tahay. Haddaad doono waa yareyn karaa, wax weyn maahan. Okay, sidoo kale waxaa ujeedaan halkan waxaa ku qoran magaca sida u bedelaa. Magacaan waxaa ku qori kartaa meeshaan paint toolka ayaa dooranaysaa. Geeska uu kasoo bilaabanaya magaca ayaa ku dhufanaysaa. Meesha uu ku dhamaanayna waa tagiisa waa ku dhufanaysaa. Kadib wareeg ayaa sameynaa sida uu shape u yahay magaca ayaa sameynaysaa. Kadib colorkan oo geeskan waa iska xiraysaa, hal mid ayaa ku deysanaysaa colorka hoose. Haddaa rabtid colorka bedel, white ka dhig, stroke colorka. Sidaa markaa sameysid waa ku dhufanaysaa, waxaad tegaysaa text, waxaad dooranaysaa halka kan oo ah type on the path tool. Kadib halkan ay imaanaysaa waa ku dhufanaysaa, waa qoraysaa magaca muxuu yahay Stonebridge University. Kadib highlight saar iyo weynay magaca. Kadib bold ka dhig, colorkana white ka dhig. Okay, intaa markaa sameysid labadan shape wax u dhexeeya oo badan ma jiraan. Haddaa rabtid inaad star kusoo dartid, star intaa looga soo daraa. Shapeska ku dhufanaysaa, shapeska markaa saas ugu dhufatid, star meesha ku jirtaa. Haddaa rabtid starkaas oo kursinaysaa, intaa ku gelinaysaa. Colorka inaad ka bedeshid blue, it's not big deal inaad star kusoo dartid. Starka ugu daran. Shapeskan kale waa sawiro caadi ah. Hadda ani waa create garin karaa, laakiin waqtiga iga qaadanayso iyo wax diidaya. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican naga faa'iideen cashirkan oo aad dadka asxaabtiina u sii gudbin doontaan hadduu Alle idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.